صبح ويا خير سنة جهور به سولي سنة صبح ويا خير سنة جهور به سولي سنة عين سوف مبلا عين سوف مبلا عين سوف مبلا صبح ويا خير سنة جهور به سولي سنة صبح ويا خير سنة جهور به سولي سنة عين سوف مبلا عين سوف مبلا عين سوف مبلا سان بيبي سرما ويدديو سقل فاعورتي وهاد لسو سرلو مكين سان بيبي سرما ويدديو سقل فاعورتي وهاد لسو سرلو مكين nugal beeraha xalle sabrada nugal beeraha xalle las'aniyo sa'eg tale las'aniyo sa'eg tale sabrada nugal beeraha xalle sabrada nugal beeraha xalle las'aniyo sa'eg tale las'aniyo sa'eg tale صبح ويا خير سنة جهور به سولي سنة صبح ويا خير سنة جهور به سولي سنة عين سوف مبلا عين سوف مبلا عين سوف مبلا صبح ويا خير سنة جهور به سولي سنة صبح ويا خير سنة جهور به سولي سنة عين سوف مبلا عين سوف مبلا عين سوف مبلا سان بيبي سرما ويدديو سقل فاعورتي وهاد لسو سرلو مكين بسم الله الرحمن الرحيم وعنو وناكسن مرتشرفت قيمها يقايها له برنامج كان نعاوه nagala soo qayb gashay waxaanu ku codsanaynaa martisharafta qiimaha iyo qaayaha leh inay soo dhaweeyaan madaxda aanu ugu talagalnay inay hoyga marti u noqdaan ay halkan fadhiistaan sacabkan u garaacaan
filayaa inaad marti sharafta qiimaha iyo qaayaha leh aad ka bogateen heestaasi uu tiriyey abwaan maxmed deeq alfa oo caawa barnaamijka martiinagu ah abwaanka madaxda iyo marti sharafta qiimaha iyo qaayaha leh ee barnaamijkeena fadhida si kala duwan ayaynu ugu casuumi doonaa barnaamijkeena caawa balse aan horta isu kiin sheego anigoo ah Jamaal Ciise Maxamed Milano inta badan way taqaanaa caawa waxaan ahay xiriyaha barnaamijka ama qabanqaabayaha barnaamijka dhinaca mikrofoonka caawa idin daadiin doona waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinku soo dhaweynayaa sanad guurada koobaad ee Khaatume State of Somalia oo caawa aynu xuseyno taariikhda Khaatume State of Somalia iyo barnaamijka aanu ka soo diyaarnaa si wacan ayaad kaga bogan doontaan intaynu ku jirno barnaamijkeenan marti sharafta iyo madaxda meesha fadhiyada waxaan leenahay ayagana mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawaada sanad guurada Khaatume State of Somalia waxaanu ku furaynaa barnaamijkeena iyo kulankeena caawa ee sanad guurada koobaad ee Khaatume State of Somalia ayadaha quraanka kariimka waxaan ka codsanaynaa Sheekh Fadiilatu Cabdixafiid Sheekh Bashiir inuu caawa inoo furo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم ده قرآن كريم كأشري حسننا الله كسيون لسوكو بكريم ولكن شيخ عبد الحفيد وبرنامج كأنه غفر يا إذا قرآن كريم waxaan ka codsanayaa marti sharafta qiimaha iyo qadarinta mudan waan marti sharafta la soo koobi karin qiimaha aan u hayno caawa barnaamijka gaarka ah nagala soo qayb galanay sanad guurada koobaad ee Khaatume State of Somalia inay u istaagaan goordhow heesta caalanka Soomaaliyeed oo aynu si wada jira u qaadi doono sidoo kalena waxaynu ugu xigi doonaa Talantaaliya hees wadaniya oo lagu talagalay Khaatume State of Somalia waxaana heestaasi iyo qaybta muusigeeda noo daadiin doona fanaanka weyn ee reer Malaysia Ciise Gubta balse aan kalmada ka iraahdo saadaashii wacnayde saakiya ilaa shalay muddo badan sugaynay saadaalinaynay sanad guura wacan ayaanu leenahay reer Khaatume meel kastoo ay joogaan caalamka idina waxaan leenahay marti sharaftaay welcome gacmo furan qalbi furan iyo laab diiran haatan iminkana aan ku soo dhaweeyo fanaanka walaalaha KL hogaamiyaha kabtanka dhinaca fanka iyo suugaanta ee Malaysia فنان عيسى قبته oo inoo qaada heestii caalanka Soomaaliyeed waxaana si diiran oo dabacsan idinka codsanaynaa inaad u istaagtaan markaad maqashaan milicsiga indhihiinu ay ku dhacayaan fanaanka isruxitaankiisa heesta macaan ee astaanta qarankeena Ini
barnaamijkeenu isagoo taxanayna noqon doonaa aan ka codsado gudoomiyaha jaaliyadda Khaatumo Diaspora Association Malaysia Cabdisamed Jaamac inuu daaha nooga furo xalfadeena quruxda iyo qaayaha badan ee marti sharaftu ay joogto inuu wadaha inooga qaado barnaamijkeena inoo xadka gooyo faleed tafadal بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته anigoo cabsiban jaangood oo anigoo ku hadlaya magaca gudida jaaliyadda Khaatumo ee Malaysia waxaan halkan ugu mahadnaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee nagala soo qayb gashay xafladatan qaayaha badan ee loogu xusayay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay maamul goboleedka Khaatumo State of Somalia waxaan kaloo aan rabaa marti sharafta nagala soo qayb gashay inaan aad ugu maaqaso gaar ahaan safaaradda Soomaaliyeed Fawsiya Sheekh Umar iyo marti sharafta kale ee nagala timid marti sharafta kale ee qiimaha leh ee nagala soo qayb gashay ee ka timid wadamada dacaladiisa sida UK Canada iyo waxaan kaloo rabaa iyadana inaan u mahadnaqo gudoomiyaha jaaliyadda reer Puntland Maxamed Aadan Aamey oo isna xafladan kala soo qayb aad iyo aad waxaan kaloo rabaa in halkan bogaadin iyo hambalyo iyo u mahadnaqo iyagana gudidii qabanqaabada ka soo qayb qaadatay xafladan qaayaha badan ee sidan ku soo qaban qaasay wixii dhammaan kale la soo shaqeeyay intaas ka bacdi
12 January sanadkii 2012 iyadoo ay ka soo wareegtay sanad guradii koowaad ee maamul goboleedka Khaatumo ee aynu caawa halkan ku xusayno waxaan rabaa inaan bogaadin iyo hambalyo u diro reer Khaatumo dibadda iyo gudahaba waxaan kaloo halkan rabaa inaan hambalyo u diro madaxweynaha maamul goboleedka Khaatumo State of Somalia Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel waxaa kaloo halkan rabaa inaan hambalyo u diro golaha sare ee fulinta ee maamul goboleedka Khaatumo ee loo yaqaano G11 ka kooban 12 xubnood iyagana waxaan kaloo rabaa inaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga diro golaha sare ee dhaqanka ee maamul goboleedka Khaatumo State of Somalia iyo reer Khaatumo meel kasta joogan iyo dhammaan ummadda reer Soomaaliyeed meel kasta joogan waxaan kaloo halkan rabaa inaan sheego Khaatumo waxay tahay Khaatumo waa Soomaaliya Soomaaliya waa Khaatumo inta kadib hadal badan in oran maayo waxaan rabaa halkan inaan ku soo gunaanado tix yar oo gabay ah soo markaa dawigii daraawiish iyo duubcad iyo dirkoodii dariiqay mareen baan ana dul joogaa duubkii maan furin faraskii kamaan degin dikrigii ma sii dayn waan darwiisho tamayaa waxaan kaloo rabaa inaan mahad celiyo inta kale kaga soo baxaya Sheikh Maxamed Yaasiin oo ahaa musharrix hore dowladda Soomaaliya ku sharaxday aad iyo aad u mahadsantiin noqolaada reer Khaatumo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ومحسن يهي قدوميها شارية خاتم ودياسبورا والشيسن ودك ماليشيا مدن عبد السمد جامع قوض وخطبة قيمة يقايله غير كل هانتاي هلكن يلقوا سو جيدنيه مر لباد iyo mar saddexaad afraad iyo shanaad aan kugu darno ma santahay mudane gudoomiye aanu israacino qaybta soo dhaweynta khudbadaha iyo speechada haatan imika aan ku soo dhaweyno idinko mahadsan oo sidii roon dhageysanaya shacabkana inuu guraacno gudoomiyaha jaaliyada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland mudane Maxamed Aadan Haamay fali tafadal بسم الله الرحمن الرحيم مشرحي مدحوينها دولة الصومالية 2012 قناعسده حاج محمد ياسين قدوميها أرضية الريق خاتمو مصر عبد السمد مرتي شرفتا كميدا جاليدا reer Khaatumo oo dhamaantood ka kala yimid qurbaha sida wadamada Canada, Australia, UK iyo dhamaan wadamada Europe waxaan kaloo meesha ka maqnaa ayagana dhaqaatiirta oo nagala fadhiya caawa dhakhtarkeeni dhamaan jaaliyada reer Khaatumo ee meesha joogta iyo inta maqanba fanaaniinta ololaha KL saxafiyiinta داديها برنامجك جمال عيسى ميلانو دمان مرتي شرفتا خير خاتم ودلية دبدبا وحنا نقول سلام يا سلامة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii caawa soo far waxa way inta xasuusto habeen kamid ah habeenada ugu qaalisan intaan maartay Malaysia joogay yama xaflad barnaamij aan ka qayb galayay sidaas darteed waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo mar labaad tiimkii soo abaabulay xafladan quruxda badan barnaamijkan aad ka loola dhacay oo ay kamid ahaayeen jaaliyada reer Khaatumo ee qurbaha ka yimid oo aan runtii ahayn caawa ayagu marti sharaf kaliya ee barnaamijkan qabsoomadiisii gacan weyn ka geystay aad baan niga mahad celinayaa mar labaad waxaan kaloo ayagana mahad gaar ah u celinayaa Darwish team oo uu hogaaminayay caaqilka iyo farax oo runtii barnaamijkii reer Khaatumo ay dhaqanka u lahaayeen oo loogu yeero jandeerta caawa ummadda reer Malaysia la shargareeyay aad baan ayagana ugu mahad celinayaa inta markaan uga baxo mahadda runtii caawa hameen weyn وحمين خاتمه مذكورة كواد رر خاتمه
وأنا كل يرى الختمان هاي أنا قلنا قريبا كاهي وحويده magaca hadda la igu yeeray jaaliyada Puntland baa la igu yeeray laakiin xaqiiqatan in raxatmaan waan ahay aad baan caawa ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato barnaamijkan martida ka soo qayb gashay dhamaanteed waan u mahad celinayaa dhammaan ummadda reer khaatimo dal iyo dibad madaxda khaatimo dhammaan shacabka hablaha maamooyinka dhamaantiin aad baan naga mahad celinayaa soo dhaweynta aan soo dhaweyseen iyo sirada nagu sharafteen barnaamijkan aad baan naga mahad celinayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh hay gudoomiye maxamed aadan haamay oo barnaamijkeena khudbadiisa qiimaha leh aanu si diiran uga dhageysanay waxaan mar labaad leenahay soo dhawo gudoomiye sidoo kale barnaamijkeena si taxana aynu sii qaadano qurbo joogtu waa inoo dhiban tahay oo waa hadli doontaa balse aan ku soo xijiyo gudoomiyaha mid ka mid ah haweenka Khaatumo Diaspora Station Malaysia oo iyaduna khudbadeeda ama hadalkeeda soo koobi doonta golahana ka sheegi doonta aanu yeero maamo Maryam Faarax oo iyaduna عاوة مرتينو الله وين يسوق كان جوبته وين بالنا ما حد يسكله أنا بدوينا أنا جلسوا مرت شرفت أنا جلسوا قريب كشيء حفلة عاد وبلارن معنا يا خاتمه استاد سنة جورة خاتمه استاد عاد بان وما حد سنتين هذه البدمات سنتين الليرو يرويين أبو قال أذكر وحنا الله يا هاي عافمات نقول عيدة نبتقدين نقول عيدة عيد ونكسن انت بعدين وحنا الله يا هاي الليرو غير خاتمه استاي وحنا الله سيدا يوس سكسي ونكسن وحقولي حفلة واتكم هتنتم وين نوصل مع مشاهد سلا يسكا ونعسن إن شاء الله. وحندلنا أن هاي دلنا يردو كصوبرتي ودن كناس جامعة كقلن جبسي وحنولنا هاي ما دك السؤال برتين وحلوقة بهاي هاي ودن كيني. حلوقة بهاي ودن dhalinyarada reer Khaatimo waxa loo baahan wadaninimo mid akhtartii bartay engineer ay nooc waxad barateen waxa looga baahan yahay wadankeena baa looga qabaa wadani ma aha ninka intuu jaamacad ka soo qalin jabiya wadan gaalo ama wadan rag ilahay wuxuu soo barteen la aado waxbarashadii waxaan leeyahay ma ninkaas wadani waxa ninka waxbarashadii iyo waxtarka ka muujiya wadankii ciidiisii hooyo ee uu dhashay taas ayaa muhiim ah anigoo walaal dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan runtii wax baratay aan jecelahay inay ka muujiyaan wadankoodii oo ay ku masayrno dadkan wadankoodii sida quruxda badan ee ay u dhisteen inay ku masayrno haday nahay Soomaali inagama fiicna inaga ka wadan fiican wadankeena ana ka nimca badan runtii intaas oo ummada wadankeena waxay u soo faragelinaysaa nimcada taala iyo kheyraadka wadankeena ku jira ayay og yihiin dal iyo dabadba oo meel kasta waxa ummad kasta wadankeena ay u soo faragelinaysaa nimcada wadankeena taala ama si kheyraadka aynu haysano macdanta wadankeena ku jirta waxaan aaminsanahay wadan ay ku jirtaa inuusan jirin oo aan ahayn wadanka Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay dhalinyaro ama culimo qaal codkar mid kasta nin kasta oo wadankeena hooyo ayaa u baahan wax qabasho u baahan sida aynu wadankeena u dhisan yahay iyo si ka sii wanaagsan inaan wadankeena u dhisano ayaa loo baahan yahay sida aan kulli fikradahan aan jecelahay وايد السلام يا جنسات الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجنا sidoo kale taxanayna oo soo noqon doona lama ilaawi karo taariikhda Soomaaliyeed iyo waxaanu hidiye dhaqan u leenahay bal haata imika aan u yeerno koox la magac baxday Darwiish team oo hogaaminaya Caaqil Maxamed Cabduqaadir oo isagu halkan inagu soo bandhigi doona shaandheertii Soomaaliyeed ee SSC hidiye dhaqan ay u lahayd
waxaan filayaa in maslaxa ay ku cusub tahay Malaysia caawa qaabkay u taagan yihiin iyo waxa ay soo wadaan waa luuq uu ku luuqeyn doono fanaan caawa meesha jooga oo qaybta jaaneerta aad yaqaana gowdhahu kooban maqla sida loo goodo jiibta iyo jaamtiisa inay qaadin deganaanaha lagu doono wayna mahadsan yihiin
Allah
Ramadan
afhayeenka qurbajoogta ah oo halkan ka hadli doona aan u yeedho mudane cabdirashiid xirsi doobi iyo kelmadihiisii koobnaa falyatafadal. السلام عليكم دمانتين سيدا مركا هوري مركا قابا نوعانا ينقوم لمادو وحاد مودا إن دينا وانا نسو عصر أنا ما حد يدقوي وحاسينا يا هورتا داليانا دي اسكسو دي بردباش وانا أركي دواسة الأمارين ومهزنتي دمانتين waxaan mahad celinayaa odayaasha walaalkay maxamed yaasiin gudoomiyaha Puntland dhakhtarka qolyaha kale xagga dambe fadhiya dhalinyaradiina waxa ugu weyn oo muhiima meesha waxaa la isugu yimid xaflad xafladani waa baashaal waa sanad guuro oo baahnaa in khudbada dhaadheer ay sii noqoto annagu kullayba barafkaasaa la dilay dhalinyaradiinan wax baranaysa aad baan ugu faraxsannahay waxaanu shaqayno dee ama reer bay galaan ama qaaraan bay galaan waxaanu ku dhammaysanaynaa say u badan tahay annagoo saa qurbaa u joogna waxaan jeclahay inaan idiin sheego haddii aad jaanis oo haysataan aad ku noqotaan dalkii ama waxbarasho aad u haysataan ama ganacsi aad u haysataan inaa isaga u noqotaan dhibaatooyin way ka jiraan dalkii waxyaabaha wanaagga soo kordhaya waxaa ka mid ah Puntland Khaatumo Jubbaland muhiimadda ay leedahay waxa weeye nabadgelyo dadkii ismaamulaan gudahoodii nabadii sugaan ganacsigii sugaan Khaatumona waxaan u malaynayaa intaasi ku salaysan tahay marka waan idin ducaynaynaa haddaanu anu horta oday dhexe baan ahay oday weyn mihiya maxamed walaalkii aan wada kornay anuu isagaan oday kula isna anuu hadhow tafartiigu soo taagaya cirradaas sida ina bardhaan soo madoobeyn lahaa haddaan xariif ah laakiin waa laga xariifsan yahay khayr baan idinku ognahay war aan gudbinana ma hayno waayo waxaa warkaan gudbinahay naga qaatay qolyo Facebook iyo YouTube iyo kuwaasaa horta warkii naga qaatay haddaan xaggaa tago islaano warrama warkuna waa naga horreeya halka ka wada khayr baan idinku ognahay waxbarashada ku dadaala dalkii wuxuu qabta isla mideeya qabyaaladdu waa dhibaato haddaan idiin sheegaya annagoo qurba joogna haddaanu qabyaaladana dabada sii gashana waa dhibaato qabyaaladda ka baxa isu taga waxaystara kiina dhibaataysan kiina la xidho kiina xanuunsada soomaali weyn isu heliya inta halkaa joogtaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحاب بان أنا دانس قرية بعوانو. ماشي أنا بعد قرية بقول ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً إله ما حد سكره إله سبحانه وتعالى. سورة قرية أنا عاوة هالك شغل معنا. ما هذا كسكو وحنو ما هذا علنيا. ودقة soo qaban qaabiyay caawa xafladatan
anigu marti kuma ahi qaatumo waa u dhashay waa ka dhashay marka aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa ka soo qayb galo xafladatan awal kuma talagelin inaan كلمات كايراهو مناسبة حقيقة لكن مركان أركي فرحتنا غيرنا إذا كنت رتا يوحوها قيمة هذه هي الإنسان عاوة ويرمو قتي إن كلمات كايراهو waxay la dagaalamayeen gumaystaha Ingiriiska muddo 12 sano inta dagaalkaasi uu socday gumaystaha Ingiriisku wuxuu soo diriyay sayidka warqado uu ku codsanayo heshiis sayidkuna mar walba iyo daraawiishtu waxay ugu jawaabayeen dalka annaga leh dalka iyaga nooga baxinta joogtid waan wadaynaa jahaad ciidamada daraawiishta ee dagaalka ku shahiiday waxay ahaayeen ciidamo aad u fara badan hadalkayga ugu dambeeya waxaan siinayaa ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata wadankan Malaysia hoogaa talageliyaha iyo waana arday wax la yaqoon la'aan waa iftiin la'aan markaad ka baxdeen secondary schoolka Soomaaliya waxaad fursad u hesheen inaad Malaysia u soo aadaan jaamacad qaar badan oo idin kala baxay secondary schoolka ayaan helin fursadan qaaliga ah hesheen waxaan leeyahay fursadan qaaliga ah hesheen ka faa'iideysta oo wax barta وروحان الله إنها خساريننا دتك ماشى إذا كان أنا خساريننا هداد وحبران وإذا واد خسارودن دتك ماشى إذا كان أنا واد خساريسين وحان الله وحبرت مركز وحبرتنا أقوانت يحبرشت ودن كني وهوبان دل كني كلان نقطة هذا الكيجين تاسم كوسوكوا يا وحلي هذا اللي بدينا مرة ماي نيرينا كما ودتكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barnaamijka qaybtii madadaalada ayaynu u sii talaabsan doonaa haddii alaha uu dareeno qaybtii qodobadu waa inoo gabagabo waxaanu hadda u gudbi doonaa hadiyadihii aan ugu talagalnay marti sharafta qaar ka mid ah iyo mas'uuliyiinta halkan fadhida oo isugu jira sharaf iyo bilado kuna guddoonsiinayo guddoomiyaha Khaatumo Diaspora Association Malaysia falyatafadal mudane Cabdisamad Jaamacood si aad u guddoonsiiso madaxda iyo martida qiimaha iyo qaayaha leh hadiyadaha aan ugu talagalnay وإنت أنا مقبول الماليشيا أولياء الله سنتي أبدا وحنا speechless كونا هلا markii la isla yimaado garab ayaa loo fariistaa gurub ayaa loo wada socdaa adiga garabka bidix suldaanka ka fadhiya Abdulshiid Prado falyatafadal isagoo ka soo hayay oo ka yimid wadanka Canada magaalada Toronto وأكاديميو أبوالدي يصاحبني اسمتي أيوسيني ما إلا بدون مهر مالي كمان صاحبنا ماليشيا waxaan filayaa inuu meesha ka maqan gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ama ardayda jaalada Soomaaliyeed ee Puntland Maxamed Aadan Haami oo sabir mutaystay bil sabtina
الله الرحمن الرحيم وأنا اليوم نسول الله مرة هذا كان اليوم هذا علمي شاري دنا خاتمه هذه كان روح بلان شرفت أنا في سنة بعمل مع العلمي أنا خاتمه أنا ما سنتي كل يكونوا وهجاك وهذا النصيب يا شيخ حفظ الله المسلم وقال كنا اللي نسوي تي أقاسمها دوميها اسكندرية برنامج عاوة ديمها يقايها له سيدا خمسين من أوصله سيدا بلاد يحمل كان اللون جميل وسويكي سواء أقاسمي وأنا كل هالسنة جعلت اللي حد كان أقول له كيستي خبرة أطول بالعالم برنامج عاوة مكفى إن هذين المتقبلين حلقتها يسولويتها يقول لي بقى كلهم معمر يلا مع يلا أنا يورو هذا كان محمدين عبد القادر أبوكر فليتفضل وسوق لكي يودي بكندا مدام انت مضيها هلكا فدده مدو من بلد متستايا مسيناها لكن وقتها ayaa lagu xiriiriya waxaan nahay arday joogta meel walba waliba Malaysia qaar ayaa ku salaamiyaduna waan ku salaameynaa
gudbaynaa shahaado sharaftii iyo ciddii ka qayb qaadatay xalfadan iyaduna sida u socoto oo ay ka mid yihiin dadka sida quruxda badan ugu labisan dadka barnaamijka ka shaqaynaya iyo daadiyaasha barnaamijka shahaado sharaftan aan ugu yeero ugu horeyn hooyo Maryam Maxamed Faarax oo aan ugu talagalnay shahaado sharaf sida wanaagsan ay barnaamijka nala daadiyeysana aan mar labaad iyo mar saddexaadba uga mahadcelinayno برنامج كدانيس يبان برنامج شوق أو قابسي إنت كذا بغلطها وحمد الله إمام مريم ما إلا ودوما قبل أن شرط عامية إبراهيم علي الحاجي أو سوى بدون الكلية الشهرية خاتمة دياس والستيشن ماليشيا أو سوى كان لي حد كقاطع ضمن الجميلة خاتمة دياس ماليشيا قدرنا عمي وحبيبي مهم نوع وبرنامج شيء عن لقينا وكرين كانت فقاطي مبيدين عبدي حاجي وبرنامج كيسونا عن كل المعاون البطري ساعد كل حقيقة سنة عندنا عدد الصومالية وأحسن ماليشيا وعمل يا شادي والبدين إلا ولو بدرسينا ما في كلام إنه يدعي كتب وقتي يا يروح ليا تذكر ما ولي من الدار أيوب هاي مسؤوليتها كان وين الستيج أيام كنا شبين عادل وسوينا برنامج نقلت القاطي يوم شهر شرف على طلق إلى language center وسكول كان اللغة الإنجليزية كانوا برتقوا ومقدورين دورهم ياسين محمد ياسين أتوقع الجوجو فليتفضل ياسين سلام الله على عائشة كما نقول دورنا داتو مولد عبد الحسين وسوي البرنامج كان waxaan u yeeri doonaa caaqilka oo kabtanka kooxda hogaaminaya taageerka afraad tafadal caaqilka magac kale kuma darin laakiin ku magac dheerayo waxaan filayaa in la yiraahdo magaciisa saddexaad maxamed cabdulqaadir abiyan oo ku magaceen caaqilka waana caawa kabtankii cusbaa ee halka fadhiya
فنانين منهن أول
haddeer wixii ka dambeeya qalanjo maaha aan fardowsa ahayn aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa sida qiimaha ay nagala qayb qaadatay sidoo kale aan u yeedho kabtanka kooxda gobolka Cayn Mawlid Cabdi Xuseen oo isaguna ku guuleystay koob tartan kubad cageed ah oo ay dhigtay maamulka jaaliyadda Khaatamo Diaspora Association oo iyaguna si gees ana saddex geesood la soo arkay saddex gobol ay ku tartamayeen oo koobkaasi kabtanku ku guuleystay hambali ayaa la waxaan filayaa in sacab idiga mudan yahay iyagana gobolka Cayn waxaan leenahay guul hambaliyo sida wanaagsan ay koobka u qaadeen haatan imika DJ